maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir galad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir maxkamaddu markii ay aragtay gal dacwadeedka ciqaabta ah ee lambarkiisu uu yahay 1025 ayna eedeysanayaal ka yihiin cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir iyo ayuub maxamed cabdi ina hooyo astaahi cabdi cali 25 jir ah ku dhashay cadaado degan cada kibir saddex galad axmed xuseyn ina sacdiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir maxkamaddu markay aragtay xaashida eedda ee xafiiska xariiraanta guud ee galmudug kuna taariikhaysan 12 bisha 10aad 2025 maxkamaddu markay u akhrisay una sharaxday kuna wargelisay eedeysanayaasha eedda loo haysto si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed farqada koobaad xarafka B iyo ka labaad xarafka A B C kuna jawaabeen eedeysanayaashu si waafaqsan qodobka 104 farqada koobaad xarafka C ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah maanaan gelin dambigaas maxkamaddu markii ay dhageysatay dooda xafiiska xariiraanta guud ee galmudug iyo cadeymaha oo soo gudbiyay si waafaqsan qodobka 114 110 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay difaaca qareennada eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 116 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada dhinacyada dacwadda si waafaqsan qodobka 119 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay dhinacyada kuna sameysay qiimeyn dhameystiran cadeymihii ay soo gudbiyeen si waafaqsan qodobka 202 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markii ay aragtay aayadda 58 ee suuratul nisaa maxkamaddu markii ay aragtay kitaabka majmuucu nawawi juska 20aad boga 283 maxkamaddu markay aragtay kitaabka tuhfatul minhaaj juska 9aad boga 320 maxkamaddu markii ay aragtay xadiiska saxiix muslim ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lambarkiisu uu yahay 342 ee kitaabul axkaam maxkamaddu markay u soo jeedisay walidamka ama dadkii dhaxlayay marxuumeynta ayna diideen in ay dhaartaan ama ay dhaarsadaan eedeysanayaasha xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud iyadoo oo cuskanaysa asbaabaha sare ku xusan isla markaana raacaysa qodobada kala ah 110 163 181 182 122 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedeysanayaasha kala ah lambar 1 cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir galad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir ayuub maxamed cabdi ina astaahil cabdi cali 25 jir ah ku dhashay cadaado degan cada kibir maxkamaddu waxay ku weysay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku heshay qariino mu'akkada ah oo ay ka laasimaysa in ay dhaartaan warasada marxuumeyntii dhimatay ayna diideen in ay dhaartaan sidaas darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedeysanayaasha kala ah cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan cada kibir galad axmed xuseyn ina safiyo cabdi faarax 23 jir ah ku dhashay degan cada kibir tacsiir 5 sano ah oo xabsi ah sida ku cad
kitaabka muqniga juska afraad safxada 253 sidoo kale waxay ku xukuntay ayuub maxamed cabdi ina astaahil cabdi cali 25 jir ah ku dhashay cadaado degan cadakiir 3 sano oo xabsi tacsiir ah cidii aan ku qanacsanayn waxa u furan racfaan 30 casho ah wabillahi tawfiiq